xiisadda Mareykanka iyo Iiraan. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ka digay tallaabo culus oo loo qaadayo dhanka Iiraan haddii la daldalo dadka dibadbaxayaasha ah. Sidoo kale Mareykanka ayaa ugu baaqay muwaadiniinta Mareykanka ah inay ka soo baxaan dalkaasi. Dhankan kale, ciidanka Iiraan ayaa sheegay inay ku jiraan heegan buuxa oo ay ka bixi doonaan jawaab xooggan weerar kastoo kaga yimaada dhanka Mareykanka. Xiisadda u dhaxaysa Mareykanka iyo Iiraan ayaa gaartay heerkii ugu sarreeyay maanta iyo taariikhdu tahay 14 Janaayo 2026 kadib markii madaxweyne Trump uu hanjabaad culus u diray hoggaanka Tahraan ayaa ballan qaaday tallaabo aad u adag haddii dowladda Iiraan ay bilowdo daldalaada dibadbaxayaasha ka soo horjeeda dowladda. Wuxuu fariin u diray shacabka Iiraan isagoo yiri gargaarku wuu soo socdaa, isagoo ku booriyay inay sii wadaan dibadbaxayaasha. Militariga Mareykanka ayaa bilaabay in boqolaal askari oo muhiim ahayn ka soo saaraan saldhigga ugu weyn ee ku lahaayeen dalka Qatar si looga fogaado khatar haddii Iiraan ay weerar rogaal celis ah soo qaado. Xiriirka tooska ah ee u dhaxeeya wasiirada arrimaha dibadda Iiraan iyo ergeyga gaarka ah ee Mareykanka ayaa gabi ahaanba la hakiyay maanta. Trump ayaa ku dhawaaqay in dal kasta oo ganacsi la sameeya Iiraan lagu soo rogi doono canshuur dhan 25% oo laga qaadayo badeecadaha ay u soo dhoofiyaan dalka Mareykanka. Isku dhacyada ayaa ka dhashay xaalad dhaqaale xumo waxaana la soo warinayaa in dhimashada ay kor u dhaaftay 2600 oo ruux tan iyo dibadbaxyadii December 2025. Dowladda Iiraan ayaa dhankeeda ugu digtay dalalka dariska ah sida Sacuudiga, Imaaraadka iyo Turkiga in ay weerari doonto saldhigyada Mareykanka ee ku yaala dhulkooda haddii Mareykanku uu weerar toos ah ku soo qaado Iiraan. Dhankan kale, madaxweynaha cusub ee Poland ayaa wareysi uu siiyay barnaamijka Today ee ka baxa idaacadda BBC Radio qaybtiisa afraad wuxuu si cad ugu sheegay in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu yahay hogaamiyaha kaliya ee dunida awood u leh inuu joojiyo Putin. Madaxweynaha cusub wuxuu ku dooday in Trump uu haysto fursad iyo saameyn gaar ah oo Ruushka ku qasbi karo inuu miiska wada hadalka yimaado, isagoo ku sifeeyay Trump hogaamiyaha kaliya ee xallin karo dhibaatadan. Wuxuu cadeeyay in aan weligiis la aamini karin Putin maadaama Poland ay taariikh ahaan u taqaan Ruushka kaliya inuu yahay dal gardarro badan. Madaxweynaha Poland ayaa ugu baaqay dalalka Yurub inay sameeyaan wax kasta oo ay ku taageeri karaan dadaalada Trump ee lagu soo afjarayo dagaalka Ukraine halkii ay ku walaaci lahaayeen siyaasadiisa. Madaxweynaha Poland wuxuu sheegay in Poland ay ku jirto dagaal isku dhafan oo kaga imaanaya Ruushka tan iyo sanadkii 2021 kaasoo isugu jira weerar dhanka internetka ah, dacaayado iyo xadgudubyo dhanka hawada ah oo ay ka geysteen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn. Hadalkan ayaa imaanaya xilli ay socdaan dadaalo nabadeed oo uu hogaamiye madaxweyne Trump. Ergeyga gaarka ah ee Trump ayaa la qorsheenayaa inuu u safro Moscow si uu la kulmo Putin. Waxaa miiska saaran qorshe nabadeed oo muran badan dhaliyay kaasoo dhigaya in Ukraine ay ka tanaasuso ku biirista NATO loona sameeyo xad u gaar ah tirada ciidamadeeda. Ruushka ayaa dhankiisa maanta sheegay inuusan aqbalayn xadgudub, inuusan aqbalayn xabad joojin ka hor intaan heshiiska buuxa laga gaarin colaadda.